اوكي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada kanaalkeena haddii ay tahay markii ugu horreysay soo boqotay kanaalka subscribe saar fadlan Ethiopia iyo Masar waxay isku hayaan ama isku hardamayaan biyo xidheenka Nailka kaasi oo ah qalafka ugu weyn ee Ethiopia iyo Masar waqti xaadirkan labada dhinac in muddo ah waxay ku tartamayaan gaar ahaan Ethiopia waxay doonaysaa inay la jaanqaaddo caalamka oo ay dhisato webigan Niil si ay u kordhiso dhaqaalaheega joogitaanka Soomaaliya ee ciidamada Masar joogitaanka ciidamada Masar ee Soomaaliya ma dhalin kartaa xiisado colaadeed soo laabashada ciidamadan oo ka dhaca Masar geeskan iyo xasiloonidan geeskan Afrika imaadka Soomaaliya wuxuu horseedayaa dagaallo hor leh ku bilowda Soomaaliya haddaba maxay tahay sababta Ethiopia iyo Masar ay iskala yimaadeen Suudaan ay soo dhaafeen madaxweynaha Suudaan iyo Masar ayaa sheegay in Ethiopia waxay rabtaa inay xoojiso dhaqaalaheega geeskan Afrika gaar ahaan Addis Ababa laakiin Masaradu taa beddelkeeda waxay rabaan inay yeeshaan iyo inay ku kobciyaan sidii awalba ay ahaan jirtay beer farashada faraacinada ama Masarada khilaafkan u dhexeeya dowladaha Ethiopia iyo Soomaaliya wuxuu soo dhaweynayaa dagaallo ka dhaca geeskan Afrika gaar ahaan quwadaha waaweyn ee Afrika iyo geeskan Afrika Ethiopia iyo Masar Suudaan lafteeda waxay raacsan tahay Masar sababtoo ah madaxweynaha Suudaan ayaa yimaaday 2021dii dalka Masar kaasi oo ay ku heshiiyeen haddii Ethiopia ka laaban weydo go'aankeeda inay ka qaadi doonaan tallaabo sharciga waafaqsan siduu yidhi madaxweynaha Masar Cabdi Fataax al-Siisi